Donald Trump ayaa hadda bilaabay canaan iyo weliba calaacal wax loo kala garan waayo asaga oo isla daqiiqada ka hor soo post gareeyay Truth Social-kan arkaysaan oo sidoo kale uu eedeynta dusha uga saarayo fashilka wadahadalladan macnaha ay sheegay si guud hadda u fashilmay oo ay cadaatay in la isdiidan yahay labada dhinac. Donald Trump qodobadii xalay uu saxiixay maamulkiisa ay la xumaadeen kadib markii shacabka Mareykanka oo dhan ay ku kaceen buuq fara badan uu sidoo kale ka dhashay waxyaabahan wax dadka reer America ay aqbali karaan ma aha markii lagu dhahay Donald Trump oo macnaha ay sheegay runta indhaha laga saaray qodobadii oo dhan oo xalay aan akhrineynay in ay macnaha ay sheegay Iran sidoo kale si toos ah ugu hiilinayeen sidoo kale in ay macnaha ay sheegay qodobada ku xusan yihiin in aan waxba laga bedelaynin uranium-ka Iran iyo bacriminta ay wado oo ah qodobka ugu muhiimsan macnaha ay sheegay furka ay u tuureen dadkii Mareykanka oo dhan shacab iyo siyaasiyiin dhamaantood saqiir iyo kabiir macnaha ay sheegay aadka uga xanaaqeen. Donald Trump ayaa sidoo kale asaga oo eedeyntan rabo in uu NATO sidoo kale lugaha u geliyo ceebtan waxaan ogeyn ilaa iyo isbuucyo inuu Donald Trump ku tashkiilinayo NATO inay ceebtan hadda Mareykanka uu ka baxsan laayahay ay lugaha la gasho iyo dhiiqadan iyo weliba fadeexadan ku habsatay Mareykanka oo ah in macnaha ay sheegay si toos ah hadda indhaha caalamka oo dhan ay u fiirinayaan Mareykanka in looga adkaaday wadahadalladan dagaalkii ay waxba ku qaadi waayeen dagaalkii sidoo kale la ogaaday ama la xaqiijiyay analysis-na laga soo gudbiyay in Israel ay ka waaleen Mareykanka oo si qasab ah macnaha ay sheegay jaahilnimada Donald Trump iyo aqoon darrida uu u leeyahay qolooyinkan Iiraaniyiinta mayl adeegooda ayaga oo og xaasidnimo dhiiqada lugaha u geliyay Israel had iyo goorna Mareykanka wuusan iswaansan ma ahane ay u taagan yihiin Israa'iiliyiinta in Mareykanka ay macnaha ay sheegay wax kasta ay dhiiqo kasta lugaha u geliyaan ayaga oo sidoo kale Mareykanka ku qanciyo markasta in ay macnaha ay sheegay threat ay yihiin wadamada bariga dhexe ee dhibaato ay yihiin hadda xitaa dagaalkan Iran markii laga soo faraxasho Turkiga ay rabaan inay weerar ku qaadaan ayaga oo aan waxba ka sameynin oo macnaha ay sheegay sidoo kale Lebanon ceasefire-kii Lebanon lagu soo daray maanta waa ay qarxiyeen oo waxa soo dhaway ka boodin marka Israel macnaha ay sheegay waa ceebta ugu weyn oo maanta Mareykanka uu leeyahay. Donald Trump caqli yaridiisa ay sidoo kale aad uga faa'iideysay marka Donald Trump wuxuu isku dayayaa dhiiqadii ay horay u diideen qolooyinkan NATO gaashaanbuurta NATO 31 dal ka kooban markii Mareykan laga bixiyo 30 ah ee macnaha ay sheegay uu ugu goodinaya inuu ka baxo balse kama bixi karo oo wuxuu uga bixi karin waxa weeye resolution waxa jira la saxiixay oo sharci galay oo dhaqan galay oo 2023gii lagu kala baxay ayaa jiro marka dhaqankaas iyo waliba ay sheegay shuruucdaas qoran Donald Trump kama talaawi karo sidoo kale shuruucdaas dadkii wax ka saxiixay waxa kamid ahaa ninka hadda ah wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio sidoo kale kamid ahaa marka qoraalkan wax weyn bedeli u maayo kaliya waa calaacal uu Donald Trump soo gudbiyay oo macnaha ay sheegay sidoo kale meesha wuxuu ku soo diray Greenland oo uu leeyahay macnaha ma xasuusatiin inaan Greenland in weydiisanahay waxa soo hadii macnaha Greenland uu Mareykanka qaadan lahaa waxaana mashquul ah macnaha ay sheegay isku ma aan furi lahayn oo Israel position ama macnaha Janice umaysan hesheen ayuu hadalkan markii political ahaan siyaasad ahaan markii la fasiro aan analysis gareynay ayaa wuxuu ku soo baxaya macnaha hadii Greenland aad noo ogolaan lahaydeen oo threat-ka Europe ku soo socdo sidoo kale ee qolooyinka Ruushka iyo Chinese-ka in ay qaataan aan ka ilaalin lahayn Iran ay sheegay Greenland oo Greenland ee Mareykanka lagu wareejin lahaa ciidanka Mareykanka ay saacadan haysan lahaayeen ayadoo oo waxaan oo dhan ay dhicin oo Iran iyo dhibaatadan iyo waxaan oo dhan bay Israel Mareykanka gelinin macnaha waxaan oo dhan ma aysan dhicleen marka hadalkiisa waa iska calaacal Donald Trump mana awoodo inuu hadda NATO ka baxo ay sababtu tahay shuruuc waxa jira la saxiixay 2023gii sida aan sidoo kale hore u soo sheegnay laakiin waxa Donald Trump aad uga faa'iideysanayo oo ayaga oo ku hoos jira isla maamulka campaign ku korgalay ninka loo yaqaan Marco Rubio oo ah wasiirka arrimaha dibadda ama xogayaha arrimaha dibadda ee Donald Trump ayaa si macnaha ay sheegay aad iyo aad muhiim ugu ah siyaasaddiisa iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed uga faa'iideysanayo asaga oo shirar la galahayo ninka loo yaqaan Ruth oo ka ah sheegay xoghayaha secretary-ga ah NATO ama gaashaanbuurta NATO xoghayaheeda ah
ayaa sidoo kale uu heshiisyo gaargaar ah sidoo kale ay la galahayaan asaga iyo sidoo kale JD Vance oo ah madaxweyne ku-xigeenka Donald Trump. halkaasi marka waxaa muuqato in discussionadii caalamiga ahaa wixii oo dhan Donald Trump laga hoos guurahayo maadaama la wada ogaaday caqliyaradiisa, qaabka uu u fikirayo, sida iyo wadada uu Mareykanka ku wado, fashilka ku dhacay sidoo kale policygiisa arrimaha dibadda ama macnaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka in uu fashiliyay Donald Trump. waxyaabo badan ay Mareykanka ka qariban yihiin, ceebtan iyo dhiiqadan marka cid inay kula sii jirto rabto ma jirto. qof kasta sidoo kale waa uu ka dabaalnaa. sidoo kale madaxweynaha Faransiiska ayaa soo hambaliyeeyay ceasefire-ka ama xabad joojintan intaasoo dhan loo ololeynahay oo Mareykanka aan la doonaynin inuu markii horeba dhiiqadan lugaha u geliyo, asaga oo sidoo kale hadda waxaan eedeyn ah aysan ku dhici lahayn. marka Marco Rubio ayaa sidoo kale la kulmahayo qolooyinka NATO si uu ogala hadlo isbuucyada la soo dhaafay Wednesday hadda la soo dhaafay bacdi ayaa wuxuu la kulmay Ruth oo ah xogayaha qolooyinkan NATO in uu macnaha kala hadlay. sidoo kale ayaa la soo sheegay xogaha ay noo sheegayaan la soo gudbinaya wargeyska Telegraph ee Ingiriiska soo baxo waxay sheegayaan in ay kulmeen xogayaha NATO Ruth loo yaqaano sidoo kale iyo waliba ninka loo yaqaano Marco Rubio oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka. sidoo kale labada xogaye in ay isku xog wareysteen arrimaha dagaalka Iran. sidoo kale waxaa muuqato in wasiiradan ee Donald Trump ay ka kala dhuumanayaan oo macnaha gaargaarkooda sidoo kale wada hadallada oo la galahayaan xubnaha caalamiga ah ee qaab international waliba sidoo kale kulmayaan ayaa muuqato oo Donald Trump hadda cid isku mashquulinaysa aysan jirin. madaxweynaha Faransiiska ayaa wuxuu sheegay in uu hambaliyeynayo ceasefire ama xabad joojintan dhacday. sidoo kale wuxuu sheegay Emmanuel Macron oo madaxweynaha Faransiiska in uu horay uga sii digay 40 bari oo dagaalka u socday ka horba inuu ka sii digay waxyaabahan fashilka inay Mareykanka ku dhici doonaan, in ay macnaha sheegay waxyaabahan aan loo meeldayin asaga oo wax cabsi ama naxdin aan ka qabin Donald Trump. hadda maadaama macnaha sheegay Donald Trump hadda lagu korshaaxayo madaxdii caalamka oo dhan ay ku korshaaxayso maadaama policygiisii uu fashilmay. sidoo kale uu isku dayahay NATO in uu ceebeeyo ama uu ku eedeeyo ayaga inay sabab u ahaayeen maadaama uu ku push gareynaya Donald Trump. sidoo kale wuxuu sheegaya NATO waa ay diideen intaasoo dhan aan la dagaalka soo gala, hadda haday dagaalka soo gali lahaayeen xilligan Iran waan ka guuleysan lahayn, waxaan oo dhan maana commit gareyn lahayn ama dhibaatadan oo dhan namay haysan lahayn. Iran maanta naguma dul feestayseen oo naguma macnaha dul mushaaxdeen oo waxay rabto ma aysan sheegteen ayuu sidoo kale Donald Trump sheegay. sidoo kale Donald Trump Iran iyo waliba heshiiska kala dhaxeeya Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu u muuqdaa mid fashilmi doono maadaama Mareykanka uu ilaa hadda isku adkeenayo iyadoo madaxweyne ku-xigeenka JD Vance asaga oo sidoo kale jooga magaalada Budapest Hungary dalka loo yaqaano oo sidoo kale xaggaasi asagana olo doorasho kaga jiro ninka hadda joogo si Cohen loo yaqaano uu u soo doorto mar kale oo loo soo doorto maadaama uu aalay la sii noqonayo hadda macnaha firfircooni muujinayo maadaama doorashadii sidoo kale midtaanka Mareykanka ay soo dhowdahay Mareykanka gudihiisa tii madaxtinimo sheegay 2028 sidoo kale ay ku sii xigi doonto. ayaa sidoo kale wuxuu sheegay JD Vance in macnaha sheegay xabad joojinta ay sidoo kale macquul ahayn aan heshiiska aysan ku jirin in Lubnaan laga saaro xabad joojinta asoo halkaas Iran sidoo kale kula helin. sidoo kale waxyaabaha qaar wuxuu u tiirinayaa madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump si uu macnaha sheegay asaga iskaga bootiyo wax walba oo la sheego madaxweynaha ayuu dhahayaa maadaama macnaha sheegay hadda la tashigay iyo uu dhamaaday waxyaabihii Donald Trump macnaha sheegay la rabay in asaga si gaar ah macnaha sheegay uu iskugu qeexo oo si macnaha maadaama maamulkii uu ka mid yahay JD Vance oo madaxweyne ku-xigeenkii uu yahay eedeymaha oo dhan ayuu iska leexinaya. marka waxaa muuqato in siyaasad kale iyo olo kale ay ku dhaxwataan wasiiradii golihiisa wasiirada madaxweyne ku-xigeenkiisii sidoo kale cid kasta oo saaxiib la ahaa Ruushka xataa in uu double face isticmaalayo qaarna dhinacna uu Iran kala jiro oo hadda xataa aan kula hadlahayo hub ku daldalayo dhinaca kalena uu Mareykanka sidoo kale kala safan yahay Ruushka. JD Vance wuxuu sheegay asaga oo sidoo kale fustu ay u taagan tahay balse wali aan ka soo bixin magaalada Budapest ee dalka Hungary ayaa wuxuu midiyaha la wadaagay asaga oo u jawaabay sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Iran ayuu sidoo kale bartaasi uga jawaabay asaga oo sheegay qodobada dhowrka ah ee disagreementiga ama la isku fahmi waayay oo ay ka mid yihiin in ceasefire-ka ama xabad joojinta ay ku jirto
Lubnaan. Sidoo kale qodobada sidoo kale la isku diidan yahay ee dhowrka ah ay ku jiraan sidoo kale uranium-ka iyo waliba bacriminta sheegay waxa loo yaqaano nuclear-ka Iran. Sidoo kale qodobada la isku fahmi lahayd in ay ku jiraan iyo sidoo kale qodobo dhowr ah ayuu ka hadlay, wuxuuna sheegay in rectification lagu sameyn doono. Sidoo kale heshiiska iyo waliba shirka weyn ee soo socdo magaalada Islamabad ka bilaabanayo Sabtida soo socoto. Hadalkiisa ayuu sidan u dhigay. He said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement because there's a 15-point plan floating around, there's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely. Let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about an attack that had allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. Ceasefires are always messy. An hour after the president announced the ceasefire, the Iranians launched a bunch of missiles. Then the Israelis responded. Then some of the Gulf Arab states responded. This is the nature of a ceasefire. No ceasefire ever goes without a little bit of choppiness. What we have been very clear about is that we want to stop the bombing. We want our allies to stop the bombing, and we want the Iranians to do the same thing. We're seeing evidence that things are going in the right direction, but it's going to take a little time. The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do. And I think the president's been very clear on the enrichment question. Our position on that has not changed. I think the third thing that he said was Lebanon. Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things, but it's really fundamentally, we're on the right track. We got a lot more to do. We got a lot more that the Iranians are going to have to accept as part of this negotiation, but I think we've got a strong hand and we're going to play it well. Thank you all. Ninkan JD Vance ah ma aha nin waalan sida hadalka uu u kala dejinayay sida uu isku dayay in negotiation-kan uu sii socdo loo sii ambaqaado ay isku dayay inuu si positive u hadlo asaga oo ka bedelan ninkii waalnaa Donald Trump aha. Qodobada uu ka hadlay muhiimka ah JD Vance ayaa waxay ahaayeen in uu sheegay sidoo kale qodobada lagu heshiiyay inay aad uga tiro badan yihiin saddexdan qodob ee Ghalibaf uu soo sheegay oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ee Iran. Saddexdaasi qodob ay ku jiraan uranium-ka iyo bacriminta Iran inay sii soconayso, sidoo kale Lubnaan in xabajoojinta aysan ku jirin ay qodobadaasi sidoo kale ka mid yihiin, balse uu sheegay in wada hadalka uu weli sii socon doono oo Islamabad Sabtida lagu balansan yahay waxyaabo badan laga wada hadli doono ilaa haddana heshiis lagu kalsoonaan karo uusan dhicin. sidoo kale qolooyinkan Iiraaniyiinta wali marinka Hormuz macnaha ay sheegay mar labaad la sheegayo in ay xireen sabab la xiriiro in heshiiskii qaar kamid la buriyay oo ay kamid ahayd inaan Lubnaan la duqeynin, balse qolooyinkan Mareykanka allies kala saaxiibada la ah Israa'iiliyiinta ay duqeeyeen. sidoo kale wuxuu sheegayaa ninkan JD Vance ah in uu sidoo kale rabo in uu la hadlo Israa'iiliyiinta in ay joojiyaan oo sidoo kale xabajoojintan ay sidoo kale macnaha ay sheegay dhaqan gasho oo farfareynta ay joojiyaan. sida ognahay ninkan Donald Trump wuxuu uga duwan yahay JD Vance ayaa ah in sidoo kale hadda ka hor ama isbuuciyo ka horba uu sidoo kale xitaa la diriray ninka loo yaqaan Netanyahu oo Prime Minister Israel uu kula diriray waxyaabo la xiriira xabajoojinta iyo waxyaabo noocan. marka ninkan ayaa Donald Trump ka caqli badan markii la fiiriyo miisaan ahaan. sidoo kale qofka waxyaabaha aadka u faraha badan macnaha negotiation-ka iyo in la aaminay asaga wajigiisa sidoo kale negotiation-kan ama wada hadaladan ay ku socdaan sidoo kale la wada qeexay oo caalamku uu wada arkaa. haddii muuqaalku soo gaar like noo saar, haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biiro nagu dhiirigeli subscribe-ta waa mahadsantihiin.